tirada guud ee ilaa ay hadda lahaayo waa 21 qof. hal qof wuxuu ku jiraa Xalane, 5 qof waxay ku jirtaa isbitaalka Martiini, 2 qof ayaa waxay u sii baahan tahay xanaano aad u gaar ah, 12 qof waxay karantiil ku yihiin gurigooda, 2 way raysatay oo ilaahay waa bogsiyay alxamdulillah, 1 qofna waa dhintay, ilaahay ha u naxariisto jannada ha ka waraabiyo intii uu ka baxay isaga intii geeriyootay Allah u naxariisto sabarna Allah ka siiyo. waxaa muuqata in xanuunka uu si aayar ugu sii fidayo bulshada dhexdeeda maadaama cudurka haatan laga helay dad iyaga aanan dhawaanahan gelin wax safar ah ama aanan xiriir la sameynin qaar ka mid ah dadka la xituujiyay in cudurka laga helay. waxaa haddaba muhiim ah in la wada raaco fariimaha iyo talooyinka caafimaad ay ka mid yihiin sida soo socda: in dadka guryahooda joogaan haddii aysan jirin wax ka dhifaya inay bannaanka u soo baxaan, in la kala fogaado oo dadka ilaa 2 mitir ay isku jiraan haddii ay bannaanka joogaan oo soo dhacdaba inay soo baxaan, in la laasimo faradhaqashada saxda ah ayadoo la isticmaalayo biyo soconaya iyo saabuun ugu yaraan ilaa 20 ilbiriqsi, salaanta gacan qaadida in la joojiyo iyo in qofka loo haanyoodo oo laabta la geliyo marka la isa salaamayo waa in la joojiyo taas, in qofku ku qufaco ama ku hindhiso xusulka isaga oo laabayo cududda ama isticmaalo tiish, inaadan marnaba ku taabanin gacmaha afkaaga, sankaaga iyo indhahaaga. qof kasta oo isku arka qandho, qufac ama neef qabasho waa inuu wacaa lambarka gaaban ee 449 si loo siiyo talo caafimaad ama loo caawiyo.